dalka Sweden tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19 waxyaabo badan ayay kaga duwanaayeen qaabkay ula macaamileen dalalka dariska ah ee Yurub iyo sidoo kale caalamkaba. xayiraado badan lama saarin dugsiyada, goobaha dadku ay ku kulmaan iyo meheradahooda, kuwaas oo badi caadi u furnaa. waqtigan la joogo meelo badan oo Yurub ka mid ah xanuunkii wuu soo noqday. Sweden waxay u muuqataa inay halkeedii ka sii wadayso. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa haddaba warbixintan wuxuu ku eegayaa sababta Sweden ay u dooratay qunyar socodnimo inay kula macaamisho COVID-19 wuxuuna ka soo diray London. Odenplan waa maxadda ku taala bartamaha magaalada Stockholm. subaxnimada hore dadku sidii caadiga u ahayd ayay tareenka ka soo degaan iyaga oo aan sidan maryaha afka lagu duubto ee loo yaqaano maaska. isla markiiba badiba dadku waxay ku jeestaan telefoonadooda gacanta. muuqaalka noocaas ahi caadi ayuu ahaa COVID-19 ka hor. haddii ay noqoto tareenada, basaska, xarumaha laga dukaamaysto oo ah meelaha caalamka inta badan lagu xidho maaska, reer Sweden dan iyo muraad kama galaan. maxaa keenay diiranaanta intaasi leeg? yaasiin cabdilaahi cabdi waa kalkaaliye caafimaad, iminka waa bare magaalada Gothenburg ayuu degan yahay. marka hore bal waxa aan weydiiyey heerka uu marayo xanuunka COVID-19 iyo guud ahaanba dalka Sweden. wadankan Sweden waxa uu marayaa tari waagii cudurku uu bilowday ilaa iyo hadeertan 8,500 oo tiro ah oo dad ah ayuu ku dhacay. waxaa ilaa iyo hadeertan u geeriyooday tiro fooda usii saaran 5,900 oo qof. exactly haddaan kuu sheego waa 5,879. waxaa dadka meesha degdega ah ama emergencyga ku jira intensive careka waxaa weeye 16 qof weeye. dowladdu iyo cisbitaalada hadeertaan waxa ay runtii aad iyo aad maaragtay heegan ugu jiraan lacalla haddii cudurkan uu soo rogaal celiyo uu soo laba kacleeyo in ay u haystaan capacity oo gobolada oo dhan ay maaragtay heegan ugu jiraan. hadda waxay ku jiraan xataa weliba qalab aruursi bay ku jiraan oo waxay isleeyihiin xilliga hadeertan qaboobaha uu bilaabmi doono kale duraygiibaa bilaabmaya. so duraygii markuu bilaabmo maaragtay inuusan durayga ku hoos qarsoomin in case hadday ku hoos qarsoontana ay dowlad ahaan ay diyaar u tahay oo sidii hore oo uusan ahayn. dadka intensive careka ku jira waxaa weeye magaalada Stockholm dee cudurkan koowa markii hore uu ka bilowday waxaa ku jira 3 qof oo keliya. magaalada caasimada labaad ee Gothenburg oo aniga aan deganahay waxaa ku jira 6 qof baa intensive care ku jira xaalad degdeg ah. magaalada ama gobolka kaleeto oo isaguna dariska la ah Denmark waxaa weeye isaguna 3 qof ayaa ku jira. inta kale waa waxba kuma jiraan ama qaybo xabad ku jirta. so marka waxaad u moodaa cudurkii in uu laga badiyey sida hadda ay tahay oo waxaad u moodaa in uu sii baabacayo halka dowladaha kaleeto ay kor u soo kacayaan tirada cudurka qaadaysa iyo dadka uu soo ridanayo ay aad u sii kacayso. yaasiin waxaa kale oo aan weydiiyey bal inuu isagu xidho maaska. waxa uu ku jawaabay maalin walba ma isticmaalo maaskaratada ma xirto. laakiin marka aan soo galo gooba igu cusub iyo goolabo aanan horey u aqoonin iyo ma garanaysaa inkastoo dee cudurku sidiisaba aan dadka jirkiisa laga arki karin haddana meelaha qaarkood markaan soo galo waan xidhaa. waxaa kale oo uu ka hadlay sababta aanay dadka reer Sweden isugu adkeyn shuruudaha ay badiba dalalka dariska la ah sida Denmark iyo Norway ay ku ilaaliyaan faafista xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno. arrinka kaleeto aad weydiisay macnaha sababta aanay Sweden iskugu adkeynin shuruudahan macnaha faafareebka ama inuu faafo cudurkan marka loo barbar dhigo dowladaha dariska sida Norway iyo Denmark oo kaleeto. de walaal waxa weeye horta waxaan saynisyahanada waxa ay sheegayaan waa wax la tijaabiyey laakiin cudurro kaleeto oo sidaas oo kaleeto oo faafa lagu tijaabiyey weeye. marmarka qaarkood maaskaraha laftiisa hadduusan aqoonin qofka sida loo isticmaalo isaga laftiisa ayaa wuxuu ku siinayaa kalsooni been ah oo maaskarihii aad wadato
ayaa waxaad u malaynaysaa inuu wax kaa difaacayo. marka haddaadan si hanaan wanaagsan aadan isaga bixinin ood gacmahaada uusan taabanin ood dee meel aadan iska dhigin, dee gacmahaagii wuu soo raacaya, hadhowna markaad meel xoqato ayuu viruskiina kusoo gelaya. sharuudahan dowladuhu ay leeyihiin muxuu ahaa dadkan ku badbaadinaynaa dee in dadkii la kala xiro sida waa dhexdaasba ay Spain iyo Talyaanigu ay sameeyeen, sidaa loo kala xiro mooye, laakiin dadku way dhinac soconayaan oo sidaas hadday dee noqoto of course wuu faafaya. laakiin dadka Swedishku waa dad aad iyo aad u dhega nugul, dadkoodana maqla, aadna u foojigan, isuna ilaaliya. istaraatiijiyadda ay Sweden isticmaashay haddii ay guul tahay iyo haddii aanay ahayn weli lama xaqiijin karo. Dr. Andres Tegnell oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay xanuunada faafa oo dalka Sweden degan ayaa weli waxa uu ku celceliyaa digniin ah inaan weli la qiyaasi karin xaalka. tanise kama ay joojin ururka caafimaadka adduunku inuu ku booriyo dalalka Yurub inay wax ka bartaan istaraatiijiyadda Sweden. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintaasi noo soo diray. halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee Washington.